burburka dalka Ukraine iyo ciidamo kumanaan ah oo ku geeriyooday iyo balaayiin dollar oo la waayay ka sokow haddana dagaal juquraafi ayaa jira dalka Ukraine. warbixintan waxaan ku eegaynaa kooxaha la yiraahdo DPR ee markaa la dagaalama dowladda Ukraine isla markaana si weyn uga soo horjeeda dowladda Ukraine ee Ruushka taabacsan ayaa markii ugu horeysay waxa ay soo saareen tirada gantaalada ee lagu furay ama ay fureen ciidamada dowladda Ukraine tan iyo markii uu dagaalka bilaabaday. inkastoo cilmi baaristan iyaga oo quray sameeyeen haddana waxaad moodaa waa arrin aad u leh dhibtiisa iyo weerarka Ruushka oo isaguna aan kaasi waxba dhaamin. kooxdan DPR la yiraahdo waxa ay sheegtay in dowladda dalka Ukraine ay si weyn markaasi u sameysay waxyaabo xadgudub kuwa goboladoodana lagu sameeyey, laakiin ciidamada Ukraine ayaa furay gobolka Donbas sida ay sheegayaan amaba soo weeraray muddo hadda laga joogo ama inta weeraray qaadeen waxay gaarayaan 3,322 mar ayay isku dhaceen oo weerar ay ku kulmeen ciidamada dowladda Ukraine iyo kooxda la yiraahdo DPR ee Ruushka gacanta ka helaya, waxaana arrintani ay dhacday boqolkii maalin ee u dambeeyey. iska hor imaadka 3,322 mara waxaa ku dhintay 125 qof oo ay ku jiraan 4 caruura, sidoo kalena ay suurtagal tahay in dadii ay ku jiri karaan. marar kooban oo xabad joojin ay sameeyeen guddiga xabad joojinta ee wada xiriira ee dhinacyada ayaan lagu guulaysan oo fashalamay. boqolkii maalin isku dhacyadii ahaa waxaa ku dhintay 125 qof oo shacab ah, caruur ayaana ku jirta sida laga soo xigtay markaasi tirakoob ay sameeyeen kooxda ka dagaalanta gobolka Donetsk ee DPR. waxaa kaloo ay sheegeen in sidoo kaleeto ay ku dhaawacmeen 578 qof oo shacaba, 46 ka mid ahna waxay ahaayeen caruur ayay leedahay. markaas tirakoobka ay soo saartay kooxda gobolka Donetsk maamusha ee dagaalyahanada adaga ciidamada Ukraine marar badan cashar u dhigay. isku soo wada duub bay leeyihiin ciidamada dowladda Ukraine waxaa kale oo ay fureen 30,770 rasaas ah iyo dagaalo culus ah. waxa ay tureen bay leeyihiin ama ay weerar ku qaadeen 3,025 weerar oo iyaguna lala beegsaday ciidamada huwanta. waxaa kaloo ay burburiyeen 3,663 ayaa ku burburay weeraradaasi iska horimaadka, iyadoo 770 goobaha warshadaha wax soo saar kalena ay ku burbureen. 49 ka mid ahna waxay ahaayeen goobaha caafimaad, 130 waxay ahaayeen macadyo wax lagu barto isla markaana aqoonta lagu kororsado iyo goobo kale. marka si aad u fiiriso markaa tirakoobkan la soo bandhigay khasaare baaxad leh ayuu sheegayaa oo labada dhinacaba ay geysteen. madaxweynaha waddanka Ukraine Vladimir Putin ayaa go'aan adag ka qaatay madax bannaanida gobolka Donbas la yiraahdo iyo kan kale Luhansk ayaa isaguna mid hadda dowladda Ruushka ay u aqoonsan tahay jamhuuriyad madax bannaan, laakiin waa uun war afka baarkiisa ah waa xaqiiqo in waxaasoo dhan ay Ruushka u sacabatumayaan una ololeynayaan
in laga mid noqdo dalweynaha ruushka. tirakoobkan waxa uu noqonayaa kii ugu horeysay ee arrinta iyo dagaalada Ukraine lagaga hadlo ee dadkana looga soo bandhigo khasaarihii dhacay. laakiin maleeshiyaadkan ruushka gacanta ka helaya ee la yiraahdo DPR weli khasaaraha dhimashada ee dhankooda maanay soo bandhigin. waxaase ay sheegeen oo keliya dagaaladii la isaga hor yimid iyo falalkii ka dhacay iyo waxa ka dhashay guud ahaan dagaaladaasi. wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada dowladda Ukraine ay taageerayso ay yihiin kuwo si foolxun wax u gumaaday isla markaana dhibaato badan ka geystay gudaha dalka Ukraine. meelaha la warinayo in ciidamada ruushku ay wacd ku mareen in ay cagta marin doonaan imika waaba lala soo wareegay oo Ukraine niyad jab ay wajahaysa. tan kalena marka loo eego awoodda ciidamada dowladda ruushka ee dhanka caalamka iyo muddada dagaalka dalka Ukraine uu ku qaatay ee hadda 100 maalin ku dhow ayaa dunida jahwareer kala gelinaya isla markaana ruushku ku abuuraya nabsi walwal iyo sidaasi si la mid ah dhibaato kale oo uga imaan karta dhinaca wadanka Ukraine. waana arrin si weyn looga ammaanay ciidamada dalka Ukraine in ruushku ay cashar u dhigeen oo aanay weli ku guuleysan la wareegidda guud ahaan dalka Ukraine. Dmitry Peskov oo ah markaasi afhayeenka aqalka cad ee dalka ruushka ayaa isaguna sheegaya in lagama maarmaan ay tahay hadafka ruushka. magaalooyin badan oo ku yaalay dalka Ukraine ayaa burburay imikana waxaaba qarka ay u saaran tahay dowladda ruushka in gebi ahaanba ay gacanta ku dhigto caasimada wadanka Ukraine ee iyana sugaysa madaaficda adag ee dhinaca ruushka ka imaan doonta. dabayaaqada bisha soo socota ayaa la filayaa in ruushku uu qaado weerar kale oo guracan kaas oo Ukraine lagu tirtirayo ama hogaamiyihii dalkaasi lagu kharajinayo. Ukraine si gaara dowladda ruushka marka laga hadlayo bartilmaameed ayay u tahay. in Moscow ay gacanta ku dhigto Kiev waa dadaal dheeriya laakiinse maantii beri midna maaha. magaalada oo dhan ayaa maase lagu hareereeyey meel walba oo laga soo galaan bambooyin adag ayaa lagu haasay. taasi waxa ay dhibaato ku noqon kartaa degdeg u qabsashada magaalada Kiev ee dowladda ruushka. fulixantiisa ma mooga waa tii hore loo yiri militariga Moscow iyaguna howlahaasi ma mooga. waxaynu u badan tahay in qorshaha ay ugu jirto sidii miinooyinkaas ay isaga bixin lahaayeen iyo dagaal aan muddo dheer qaadan oo haddii la rabo cagta hala mariye magaalada Kiev lagu qabsan karo dalka Ukraine in lagama maarmaanay maka tahay. haddii dowladda dalka ruushka ay Ukraine inta ay gebi ahaanba qabsato Kievna ay ku quracato waa hubaal in wadahadal degdega u imaan doono. wadnaha kaga taaganayay Moscow ku tahay inta Kiev ay imaanayaan madax reer galbeed oo doonaya ama daawasho ugu tegaya waxa Ukraine ku dhacay iyo foolxumada dagaalka. madaxweyne Volodymyr Zelensky isaguna intuu calaacalka gabay ayuu imika ku soo afmeeray afkii baa juuqda gabay.